waxaa maanta garoonka diyaaradaha ee degmada Gurceel si weyn loogu soo dhaweeyay xildhibaan Mahad Maxamed Salaad waxaana soo dhaweyntiisa ka qayb qaatay boqolaal dadweyne ah iyo mas'uuliyiin ka socotay dowlad goboleedka Galmudug iyo maamulka degmada Gurceel. xildhibaan Mahad Maxamed Salaad ayaa sheegay in socdaalkiisu ku saleysan yahay xariiq jarka mashruucyo laga hirgeliyay deegaanada laga soo doortay. ugaas Xasan, ugaas Maxamed, ugaas Nuur, nabadoon Maxamed Cali Dheeh iyo nabadoon Cali Salaad ayaa si wada jir u soo dhaweeyay waxayna sheegeen inuu hordhac u yahay wafuud la sugayay kuwaasi oo horay oo ugu baaqay ugaas Xasan, ugaas Maxamed, ugaas Nuur. waxaan u maleynaa xafladan maanta waxay ahayd xildhibaanka soo dhaweyntiisa ahayd. waxaan u maleynayaa warxumo dham waa hari doontaa. Mahad Maxamed Salaad wuxuu sameeyay wax qaali ah sameeyay meel hadii qaali ah la dhisa waxa la yiraahdaa meeshaas hebel xariga ka jaray. Mahad Maxamed Salaad xildhibaanku xariga wuxuu ka jaray Gurceel iyo Dhuusamareeb lama tagi karo. gobolka Galgaduud intii joogta maahan intii kor nooga imaanaysay oo sugaynay oo beesha oo aan baaqa u jeedinay xildhibaanka koow u horeeya. insha Allah waxaan rajaynaynaa inay hadda ka bacdi Allah waan diyaaraduhu iska kana garbin waan maleynayaa inay si fiican u imaan doonaan marka koobaadna siday u nabad jecel yihiin waan ogahay. waxaan leenahay xildhibaan soo dhawaaw waxa ku soo dhaweeyay dowlad goboleedka Galmudug iyo shacabkoodii aad iyo aad waan ugu mahad celinaynaa sida xinaan kale oo ay ku soo dhaweeyeen. waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad soo dhawaaw xildhibaane. waxaan leenahay gogashii ugaas iclaamiyay halka shaqsi ee ku guuleystay mas'uuliyad ahaan iyo mudnaan ayaad noqotay. waxaan rajaynaynaa intii kalena inay soo gaarto. aad iyo aadna waan ugu hambaliyaynaynaa bulshada dhammaanteed. waxaan leenahay inta noo jeeda Mahad Maxamed Salaad oo ah deegaanka uu ka soo jeedo nin aad looga qadariyo. waxaan leenahay xildhibaan mudane soo dhawow ku soo dhawow deegaankii aad ka soo jeeday. waana mas'uulkii koobaad ama shakhsigii koobaad haddaan sida kale u dhigno oo aqbalay baaqii ugaaska oo jeediyey. waxaan u malaynayaa dadkii lahaa marruma mase waa riyo baaqa ugaasku way ku dhiiran doonaan wayna arkayaan sida loo soo dhaweeyay. ugu dambeyn xildhibaan Mahad Maxamed Salaad ayaa ka warbixiyay ujeedka socdaalkiisa wuxuuna u mahad celiyay bulshadii kala duwaneed ee ka qayb qaadatay soo dhaweyntiisa. safarkayga aniga 3 qodob ayuu salka ku hayaa. kan koobaad wuxuu yahay dib u heshiisiin guud iyo mid gaar ahaaneed. mid guud oo reer Galmudug oo maamulkooda iyo waxa ka dhiman iyo dadka reer Galmudug sidii loo tabantaabi lahaa wax la isku duwi lahaa dib u heshiisiinna lagu sameey lahaa. iyo mid gaar ahaaneed oo aniga iyo culimada waxaan rajaynaynaa insha Allah dib u heshiisiintaas furaheeda aeroboorku ka soo bilowday hadda hoolku maraa inta kalena waa sii dhamaystirayna ilaahay nuu guuleeyay. qodobka labaadna wuxuu yahay gogol xaarid iyo tabantaabin gogashii ugaas Xasan, ugaas Maxamed, ugaas Nuur oo ku baaqay ee ahayd in shir lagu qabto meeshan oo beesha xildhibaanada aanu nahay ee golayaasha baarlamaanka aan ku matalno isku yimaadaan inaan soo ajiibay oo hordhac aanu ahay. wafdiye kalena iga dambeeyaan oo imaan doonaan insha Allah hadii Allah wada ogolaado. qodobka saddexaadna wuxuu yahay deegaanadan Galmudug oo golaha shacabka aan ku matalayo mashaariic laga fuliyo tuulooyin hoos yimaada degmooyinka cidaano ay degan tahay ee Gurceel, Balanballe iyo Dhuusamareeb sidii aan u furi lahaa oo ayadana bulshada reer Galmudug ee deegaankan joogta ayadana aan ula qaybsan lahaa wixii qabsoomay muddadii xildhibaanka aanu ahaa. waa in la joogi doona insha Allah maalmahan hadii Allah wada ogolaado. kulamo badan ayaa jiri doona oo maamulka iyo madaxda Galmudug aan isku arki doono. dhammaan qaybaha bulshada waa arki doona sidoo kale. Farxaan Ahmed Cabdi, TV-ga caalamiga ah ee dowlad goboleedka Galmudug, xarunta ganacsiga gobolka Galgaduud, Gurceel.